الرحمن الرحيم horta waxaan u hambalyeeynahay TV-ga galmudug ee hawada soo galay iyadoo meel walba TV-da galmudugna ay ahayd golob madow ay ahayd maanta waa golob iftiin ah aad iyo aad baan u hambalyeeynahay qoladii shaqadaas qabatay horumarkaas samaysay de waa ilaaha horumarka ah oo ama dhan walba ku saabsan caafimaad iyo dhaqaalaba ah marka aad iyo aad baan taas u hambalyeeynahay waxaan kale u hambalyeeynahay maamulka galmudug geygaygu waxaan taho galmudug iska leedahay sidoo kale waxay isagana u hambalyeeynaa TV-ga nagu soo biiray saxaafadda hore ugu shaqay jirnay iyo sidoo kale ay sheegeen idaacadaha ma sha Allah haddana waxaan u mahadcelinayaa TV-ga nagu soo oo nagu keenay xayeysimaha kabaniga koow ka yahay keensadana xayeysiiska oo 100% diyaar u ah inuu keensado TV-ga galmudug xayeysinta inuu keensado waxa koow ka ah kabaniga Z-Sharp si khaas ah in loo shaqeeyo raba noo hagaajiyo wariyaal firfircoon oo shaqeynaya oo ilaa xad u dirinaya samcada dadka laga dhigo sidoo kale te ganacsatada laga siiyo qayb si uu u yeesho lixaad sababtoo ah waxa weeye TV-gu haduu sahaysan ganacsigii iyo bulshadii ku xiran u sahaysan kelima shaqeyn karo marka waxaan leenahay siyaasadda kaliya yuusa u eexan ganacsigana qayb lixaad la siiyo koow cid ugu horeysa ayaan ka mid baanahay sidoo kale dhalinyarahan oo soo dhaweynayna gobolka mudugna waa u baahan wax keena waxyaalaha horumarkeena ama ganacsigeena hormarya waa u baahan TV waxa leenahay kii caga dhigta oo hagaaga oo bulshada u adeega Allah ka dhigo hubyo iyo galkaxiyo ilaa xarar dheeraga gudaha cabud waa qablayda ku tumo ilaa gaariso nasiib soco waxaan soo dhaweynaynaa telefishinka cusub ee hawada soo galay galmudug TV aad baan u faraxsanahay hadaan nahay ganacsatada iyo shacabweynaha galmudug waana u hambalyeeynaynaa madaxweyne xaaf iyo golahiisa wasiirada iyo baarlamaanka dhammaan galmudug intii ka shaqeysay ee soo gelisay hawada dabcan waxaan u maleynayaa wuxuu ka shaqeyn doonaa horumarka galmudug wuxuu noo soo gudbi doonaa horumarada galmudug ka socda dhinac kasta ha noqdaan aad baan u faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa hadaan shacabka galmudug TV-ga galmudug state oo TV-ga inoo keenay aad baan ugu mahadcelinayaa mahad Ilaahay baa iska leh marka hore midda labaad waxa uu sheegay TV-ga caalamiga aad baan soo dhaweynaynaa baahi oo qabnay sida maamulada chairkeena ka maamulada TV-ga aanu TV ma lahayn marka baahi weyn ma qabnay TV-ga TV-na tiflaanta noo dareehay marka dadka noo soo galay taxgelinta laga taxgeliyay inaga caawiyo waxay madaxweyne noo keenay aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa TV-ga galmudug state waa hambalyo leekaas waa u baahnay baahi aad u qabnay si dekada u baahnahay dhulkii geesiyada gobonimada taa go'aanka ka yimid gacmaha isqabteeno ka carbayso yimid oo galmudug la taa waxaan halkan ka salaamayaa GMC TV oo lagu magac daray dowlad goboleedka galmudug waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer galmudugba hambalyo ka bacdi walaalayaal wax badan baa waxaan ku taameynay in TV aan samaysano runtii madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf aad iyo aad wax badan buu ku guuleystay qaybo ka mid ah weeyada maanta hor fadhinaa oo GMC TV oo galmudug ah runtii madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf hambalyo waa mahadsantahay madaxweyne shaqada noo qabatay aad iyo aad baan kugu hambalyeynayna midda kale waxaan rabnaa shacabka reer galmudug
arkaysiin maanta inaanu ka hadlayno TV galmudug waxaan rabnaa masana ka codsanaynaa shaqaalaha TV galmudug in waxyaalihii hore galmudug ay aasaaskeeda ahaa maanta la joogo heerku mariyo galmudug in muuqaalo ka mid ah ay soo qaataan oo astaantaas ay mar walba ku soo qaataan taas waxaan kaga codsanaynaa shaqaalaha TV galmudug inay ku soo daraan waayo waxa weeye galmudug maanta ma bilaaban 8 sano hore u soo jiray iyo in ka badanba waxa weeye markaa shaqaalaha taas ka codsanaynaa shacabka reer galmudug waxaan leenahay hambalyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maantay muuqaalka arkaysiin oo aan ka hadlayno TV-ga galmudug wabillahi tawfiiq dhulkii geesiyada gobonimada go'aanka ka yimid gacmaha isqabteeno ilaahay baa ku mahadsan horumarka la gaaray waxaa ka mid ah oo galmudug ku soo siyaaday TV galmudug oo hadda bilow ah intii ka soo shaqaysay oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo intii maskaxda keentaba aad baan ugu mahadcelinaynaa anaan ku hadlayaa codka gobolka mudug galmudug waxaan leeyahay hambalyo barnaamijkaas waa barnaamij fiican horumar la gaaray weeye in galmudug yeelato TV u qaas ah inay yeelato oo waxeeda iyo nidaamkeeda ay ka samaysato aad baan ugu mahadcelinaa intii ka soo shaqaysay agaasimaha meesha ka shaqeeyana saaxiibkii waa wasaqana Faynus waxaan leeyahay Faynus waxa laga rabaa inaad horumarka iyo dardargelin inay gobolka mudug dhammaantiis iyo galmudug dhammaankaas uu kala gaaro TV-gaasu laga wada fiirsado meel qayb oo ku ekaan madaxweynahana dhismihii la dhagax dhigay inuu dhammaystiro wax sahlan anaga intaas naga dhimanay TV baa naga sahlanaa maamul goboleedyada oo dhan wax aan TV lahayn ma jirin TV-gaas waa qayb maqneed weeye meediyuhu waa ka fiican yahay wax walba iyo horumarada deegaamadu ku horumaraan waxaa ka mid ah xayeysiinta iyo nidaam walba TV-gaas waxay maamulada ku tooseen maamulo badan buu naga dambeeyey hadda waa isticmaalaan marka waxaan codsanayaa in waxaan leeyahay hambalyo waxaan codsanayaa in naloo soo dardargeliyo nala soo gaarsiiyo hambalyaana leeyahay hambalyo TV-ga Urina bandikala gobi ay o yasa Urina bandikala